dowladda Turkiga ayaa bilaabaysa qorshe cusub oo ay ku wajahayso wada-hadalada Somalia iyo Ethiopia si xal loogu helo xiisada ka dhaxaysan labada dal tan iyo horaantii sanadkan. Turkiga ayaa qorsheynaya in si kala gaar ah ula kulmo madaxda Soomaalida iyo Ethiopia kadib markii ay fashilmeen wareegii saddexaad ee wada-hadalada oo qorshe u ahaa in talaadadii la soo dhaafay ay ka furmaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga fiidan oo la hadlay wakaalada wararka dowladda Turkiga ayaa xaqiijiyay in qorshaha isaga oo sheegay in Turkiga uu dadaal ku bixinayo sidii uu labada dhinac iskugu soo jeedi lahaa ka hor intaan dhinacyada la isku keenin si kafool ah. Wasiirka ayaa sidoo kale muujiyay rajo wanaag in dhinacyadu ay xal gaaraan, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay casharo ka barteen labadii wareeg ee hore ee wada-hadalada, taasna ay dhabaha u xaari doonto xal u helidda taagan. Turkiga ayaa ilaa hadda martigeliyay laba wareeg oo wadahadal oo dhex maray labada dal iyadoo isku dayay inay hagaajiso xiriirkooda. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa xumaaday bishii Janaayo markii Ethiopia ay Somaliland la gashay heshiis ay uga karaynayso dhulbadeed dhan 20 kiiloomitir ugana bedelanayso aqoonsi. Taasna waxaa ka biyadiiday dowladda federaalka Soomaaliya.